dhanka kale waxaan ku wareysanay Cabdimaalig Askar oo Soomaaliya booqasho ugu tagay. Cabdimaalig oo ah madaxa ama maamulka Somali Media oo documentary ka soo sameeyay gobolada Soomaaliya qaasatan Puntland iyagoo ku bixinaya ciyaaraha documentary-gaas oo taabanaya dhinacyo badan oo isugu jirto caafimaadka, biyo la'aanta iyo waliba waxbarashada. ku soo dhawaada wareysigan Cabdimaalig idinka qaadnay isagoo maalinta Axadda barnaamijkan ku soo bandhigaya moolka loo yaqaan Muqdisho Mall oo ku yaala Cedar iyo Lake. runtii walwala aad iyo aad baad maasan tahay barnaamijkeena quruxda badan ee runtii wargelin oo runtii aad iyo aad looga xiiseeyo gobolka Minnesota iyo markii aan runtii joognayba Dubai aan ka daawanay saaxiibkay Cabdisalaan Caato oo runtii si qurux badan barnaamij uga daadahaynay saad ogtahay maadaama aan ka shaqeeyo school runtii aan ka ahay maamule iskuuladan elementary schoolka waxaa noo suurto gashay in gobolada Minnesota la siiyo winter break wax la yiraahdo. Winter break-gaas waa 2 week oo ah December wuxuu kusoo beegmaa December dabayaaqadeeda oo ku jiraan Christmas iyo Happy New Year. marka waxaan soo gashay in aanu bal Soomaaliya aan labada way ka faa'iideysan oo aanu fasax gaar ku tagno taas oo markaasi aan dhinaca siyaasadda iyo aan ka qayb qaadanay bal dhinaca horumarinta ubadka yoodka ah dhalinyarada aan ka qayb qaadan. haddaba sidee uga qayb qaadanayna su'aal baa timid waxaan niri bal dhinaca sportiga aan uga qayb qaadanay maadaama ciyaaraha ay ka socdeen xarunta Garowe oo caasimada waa Puntland macnaheedu laakiin ma aynan Puntland kaliya aan u tagnay groupkayga oo ka koobnay 5 waan isku qaybinay 3 waxay tageen Garowe 2na waxay soo mareen Hargeysa. marka waxaan markii ciyaarihii ay dhamaadeen koobkan qaadanay waxa ku guuleystay gobolka Bari ayaa ku guuleystay ciyaarahaas koobka halkaas oo la saacado looga badiyay waxaan u sii qaadnay koobka ciyaaraha waxaan u qaadnay biladii ay gashanayeen runtii farxad aad iyo aad u muuqatay ayaa ka muuqatay dhiirigelin weyn bay u noqotay waxay noqotay in ciyaartii aad loo xiiseeyo oo laga soo qayb galo wasiirka sportiga Puntland oo si fiican runtii noo soo dhaweeyay naga soo qaaday ilaa Boosaaso ilaa Garowe inta aan joognayna aan marti isaga u ahayn aad iyo aadna runtii yiri encouragement-ga ama guwaabadan dhalinyarada siinaysan waa mid aysan ilaawi karin. intii aan halka joognay waxaan chance u helay in gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn aan safar ku tago oo aan ku soo wareego anigoo ka sameynay documentary wax loo yaqaan video-ga taasoo markaa ay ahayd 3 qaybood dhinaca waxbarashada iyo biyaha iyo runtii dhinaca caafimaadka 3 qaybood ay waxaan ka soo sameeyay documentary 12 saacadood ah video iyo pictures oo adigu 3200 pictures oo ka soo qaaday kuwaas oo aan doonayna hadii Allah wada ogolaado bal inaan u soo bandhigno bulshada markaa qolihii doonay inay dhinaca horumarinta ka qayb qaataan gobolada 3 gobol ay ka qayb qaataan. waa gartay in dhinaca biyaha abaaro xun baa ka jira in Soomaaliya qaasatan gobolada aad tagtay bal wax nooga sheegay biyo la'aanta iyo biyo say ahaayeen. 3 gobol ee maraya Sool, Sanaag iyo Cayn runtii biyo la'aan waxay ka jirtay dhinaca hawdka dhinaca nugaasha iyo biyo la'aan kama jiray laakiin waxa ka jiray biyo purification wax leeyahay ma aysan haysan oo ah caafimaad biyo ku salaysan ama biyo sax leh dadku ma aysan caabeen. xagga waxbarashada iyadan maxaa kula soo kulantay xagga waxbarashada gobolada intii aan maray waxaan kula soo kurmay jahawareer ka jira dhinaca curriculum-ka UNESCO oo runtii caawisay oo manhaj u diyaarisay gradadooda dhan maadaama iskuul runtii ka shaqeeyo oo soo qaaday dhinaca kale oo soo buuhooda xadkeeda wada ogtahay waxa maray Ethiopia school ay halka ka hirgelisayna manhajka waxa laga dhigaa kalka shanaad loogu talagalay isagana manhaj fiican ayaan halka wax ka soo qaaday isagana buugaagtii la barayay ayaan ka soo qaaday si ardaydeena halkan joogta aan u tusno in ardaydaas ay bartaan af Soomaaliga noocan oo kala. Cabdimaalig waxaan u maleynayaa this week kan ama hadda inaad barnaamijkii aad qaar kamid ah dadka la wadaagaysan oo shir qabanaysaan faahfaahin naga sii fadlan. hadii la wada ogolaado waxaan qabanay hool ku yaala Muqdisho Mall ama waxa la yiraahdaa Taj Mahal Mall wuxuu ku yaala Lake Street iyo wuxuu ku yaala Cedar dadka degan gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis. halkaasi waxaan ugu talagalay in aanu dadkii maadaama aanu safar aadnay bal inaan u warrano la share gareyno wixii aan soo haray hadday noqon lahayd muuqaal ama hadday noqon lahayd pictures inaan markaa intii aan awoodayda aan tusi karno dhihi karaan intaasoo safar baan marnay meeshaasaan marnay Soomaaliya oo dhan wada tusi karno laakiin meelihii aan gaarnay bal inaan la wadaagno oo tusno midda kalena ay encouragement ku sameyso waayo fasaxyo badan baa jira samarka fasax baa jira springiga break baa jira winter break baa jira in markaa dadkana aan dhiirigelin ku sameyno 2 week in Soomaaliya intaad ku tagto intaasoo magaalo marto waxaas oo aad ka soo qaban kartid ee 2 week tahay wax weyn oo wax lagu qaban karo ayaan rabnaa inaan runtii tusno dhinaca kale sportska iyo dhalinyarada inaysan kaliya xabad iyo tahriib iyo inay ka fakaraan aysan noqon ay markaa ay noqoto inay samaysan karaan iyagoo meesheeda joogo farxad iyo reereyn iyo markaa ciyaaro ay ku baran karaan teamwork wax la yiraahdo oo markaa isku imaan karaan samaysan karaan horumar ciyaaraha adduunka ay ka qayb gali karaan soo dhulkiisa wax ku baran.